بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلتو عن ونكسن صاحب يال اسكو سو نقد لباد oo barakaysan oo sharaf leh waan idin salaamayaa waxaan idin rajaynayaa caafimaad qabtaan meel walba joogtaan xilli walba inta wanaagsan kay maalin tahay maalin wanaagsan kay habeen tahay habeen wanaagsan waxaan ka hadlayaa mowduuc iska dhextaal ah oo mowduuc guud mowduuc khaas ka hadli maayo kolley dhalinyaro isaga badannahay cidda aniga xidhan inta badan waa dhalinyaro marka wuxuun baan isleeyahay bal wax wuxuun u taraya dhalinyarada insha allahu tacala ilaahay kusoo dhex mariyo lama kala aqoon badnaan laakiin wala kala faa'iidaystaa carruurta waxay ku maamaadaa alcilmu bayna talaamiid cilmigu ardayda ku dhex jira waxa mala rag oo mudciya afkoodu dee waa in qof kasta inba ku dhex jirta marka alla isweydarsada aqoonta ayay wax fiican ka soo baxayaan marka insha allahu tacaala bal waxaan ka horreyn doonaa naftan nagu dhex jirta dhisid iyo diyaarin bay u baahan tahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii lasoo saaray waxaa lasoo saaray xilli jahliga iyo isdhaca iyo dilka iyo damiir xumada iyo nolosha bini'aadamka halkii ugu hooseysay ugu liidatay ay marayso ilaa nebigu gaadhsiiyey calayhi salaatu wasalaam muddo 30 sano ka yar ibni aadan in la karaameeyo dhiiggiisa inuu sharaf yeesho in la gaadhsiiyo dhiigga bini'aadan qofka daadiya isna hala dilo ku dhala dhaafiyo in qofka qof caaya loo xado in akhlaaqiyaadka ummadda la dhiso in ay soo baxaan bulsho dhan kasta ka dhisan aqoontii kor loo qaado dilkii meesha laga saaro qabiil iska daayay qofka qowlka laa ilaaha illallah ku dhawaaqay hadduu mudan yahay walaalka uu noqdo waa diyaarinta nabi maxamed diyaariye calayhi salaatu wasalaam marka nafta bini'aadanka in la diyaariyo waa waxyaabaha ugu waaweyn ee laga maarmaanka wax noloshaada adduun iyo aakhiraba haddaad naftaadu diyaarsanayn oo xagga macnawiga iyo xagga xisigaba aanad ka diyaarsanayn way adag tahay inaad bal wuxuun ku tallaabsato haba yaraatee ilaahi subxaana watacala waxa leeyahay qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha hubal waxa liibaanay qofka naftiisa dee dahiriya ee xumaanta iyo qurunkeeda iyo wax walba dee ka dahiriya zakaaha dahiriya leeyahay waxaa laga soo qaadaa naftu in ku dhex jirto webi dhan oo qurun ah laga dhex saaro la meedho loogu talagalay waqad khaaba man dasaaha waxa khasaare ilaahay yidhi qofka qariya ee dunuub iyo dacdarro iyo foolxumo ku qariya xataa waxa lagaga digayaa naftaada inaad dayacdo jismiyan jidhkaaga laakiin nebigu uga digaya calayhi salaatu wasalaam ragga saxaabadii yidhi markay cibaadadii nebiga ka fajiceen intay xaasaska nebiga markay soo mareen oo nebiga weydiiyeen lagu yidhi nebigu saas u tukan jiray habeenkii markaa bay dhahdeen nebigii allo dembigiisa la dhaafay oo macsuumaba saa usoo jeediyay habeenkii aniguna waxaa arkay wax noo yaallaan ee mid yidhi anigu gursaba maayo ee mid yidhi anigu seexanba maayo ee mid yidhi anigu cunto cun bay waan soobi markii nebigu ku yidhi sallam anigu waan seexdaa xillina waan tukadaa maalin waan soomaa maalin waan aftoraa xilli waan soomaa xillina waan cunaa waan gursadaa nebigu sallam marka naftaadu in xaq ugu leedahay inuu ku tusaya diyaarinta nafta waxaa ka mid ah maadaama dhalinyaro nahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee nafteena ku tababaran waxaa ka mid ah inaan nafteenna ku carbinno akhlaaqiyaadka nebiga calayhi salaatu wasalaam inaan nafteena ku carbinno inaanu shaqaysano inaan nafteena ku carbinno inaynu noqonno dad wax barta maanta markaad dhalinyaro tahay waxaa kuu fudud inaad wax kasta baran karto waayo mas-uuliyaad iyo culays ku saaran ma jirto waxaa kuu fudud inaad meel kasta tegi karto waxaa kuu fudud inaad waxa maanta aabbahaa uuna qaban karin aad qaban karto laakiin sidaas oo haddana jirta qofka dhalinyarada ah waxaa ku wareegsan
badweyn dhan oo khatarteeda leh oo shahawaad ka soo jiidanaya mataqaanaa dhallinyaranimadan ha ku jiro ayaa marka qaarkood u saamaxaynin inuu qof rasiina oo buuxo oo macquula oo degan noqdo oo maskax fiican ku fikiraya. Waata Soomaalidu kuma ma jirtay nin yar intuu arrinka booday intuu ood ka booday arrinka bood. waxyaabaha muhiimka nafta lagu diyaariyo waxa kamid ah attaqwa alla ka cabsiga inaad ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsooto shayga aad samaynayso ka fikirto intaanad samayn. carabta waxay ku maamaadaa lisaanul caaqili waraa'a qalbihi wa qalbu laxmaqi waraa'a lisaanihi oo looga jeedo qofka ilaahay ka cabsooda macnihiisu horta haddaan kuu sii jilciyo carabkiisa waxa ka soo baxay oo ka fikiraa. marka maamaada maxaa looga jeedaa lisaanul caaqili waraa'a qalbihi wa qalbu laxmaqi waraa'a lisaanihi. qofka caqliga leh qalbigiisa iyo carabkiisa dambeeya macnaa wuxuu ka soo fikiray ku hadlaa wey. qofka axmaqe bilaa garaadkiina wixii ku soo dhaca iskaga hadlaa isagoon miisaamin. marka waxyaaba nafta loo diyaariyo waxaa kamid ah inaad noqoto qof diyaarsan oo ilaahay ka cabsado subxaana wa tacaala oo wax walba aakhiro iyo ilaahay agtiisa ka fikira. waxaa kaloo nafta loo diyaariyo kamid ah inaad noqoto qof xaajiska iska ilaaliya. weliga markaad nin yar tahay amba gabadha yar tahay iska ilaali meel iska fadhiga iyo waqti lumiska iska ilaalisan muuqaalka hore ku sheegay. aad iyo aad uga digtoono waa cudurrada ugu waaweyn ee dadka maanta haysta wey. ilaahay subxaana wa tacaala ka magangashaa faqriga inuu ka saaro. dadaal inaad isku filaato waar waxa la isku jecel yahay waa caafimaadka iyo markaad wax haysata lagu jecel yahay. waxaa lagu jecel yahay markaad dadka ka dhex muuqato ee cidna u baahnayn. maalinkaad shaqaysan weydo eed baryootanto cid kasta way ku nici cidna kuusoo joogsan mayso qiimo yeelan maysid. nabiga lagu yidhi 2 su'aalood baa nabiga la weydiiyey wax dadku igu jeclaadaan noo sheeg baa la yidhi iyo wax ilaahay nagu jeclaado. wuxuu nabigu ku jawaabay izhad fi dunya yuxibuka allah wazhad fimaa cinda annaas yuxibuka annaas. wuxuu yidhi ilaahay adduunyada ku saahid ilaahay ku jeclaane dadkan waxba ha weydiisan oo waxay haystaan iska saahid way ku jeclaan dadku. maxaad ka kaftoomi kartaa dadka markaad wax weydiisato dawaana shaqaysato oo ilaahay tira saarato ood wax barato ood meesha aqoon ka xigta aad ruqaansato meesha shaqa ka xigta aad tagto. laakiin haddaad iska fadhiisato maanta adoo dhalinyaro shaqaysan kara oo tiraahdo ma shaqaasaan qaban karnaa anigoo reer binu filaan quraaca reer galoola anagoo shaqada kama shaqayno iska ilaali. didid nabi ilaahi daawud marka fiicantaadu nabi daawud waxaa la yidhi kaana yaakulu fii camali yadihi wuxuu cuni jiray wuxuu shaqaysto isagoo nebiga oo awoodi karo ilaahay siin karo isagoo waxba shaqaysan. marka haddaad saan sheegan shaqaysan weydo de waxay ku kalifin inaad baryootanto haddii lagu diido inaad wax xaddo waxaana wax isku xidhan weeye silsilad isku xidhan. markaad shaqaysan weydo dadka inaad barido ayay ku kalifaysaa haddii lagu siin waayo inaad dadka dhacday ku kalifaysaa. marka mawduucan ma ahayn mawduucan soo nidaamiyey oo aan soo tafniiday oo aan soo jeekareeyey oo aan soo qoray oo aan soo diyaariyey maahayn laakiin wuxuu ahaa mawduuc si ballaadhan uga hadlayay. waxyaabaha muhiimka waxaa kamid ah markaad dhalinyaro tahay la saaxiib qur-aanka. wallaahi uma billaahi uma tallah qof qur-aan ku qadi lama arag. oo dhalinyaro maanta diinteena waa lanoo bahaligeliyey oo qofka ehlu qur-aanka ama qofka ehlu diinka qof dambeeyaa laga dhigay waa wadaad yar muxuu cunay baa la aaminsan yahay. laakiin arsaaqi diin bay ag taallaa waa dad aaminsan tahay wey. markaa la saaxiib qur-aanka adduun iyo aakhirad ku dharki. war qof qur-aan qaatay oo ku qaday lama arag isagoo wax ka khaldayin oo qalbigiisa wax kale ku jiran mooyaane. marka waxaan nagu soo gabagabeynayaa dhalinyaroy waxay noo ballanaa inaynu shaqaysano nafteenna meel ka soo saarno waalidkeenna u tabcay aan anfacno ummadeenna aynu anfacno
diinteena aynu baranno maadiga aynu baranno aqoon iyo adduunyo isku darsano dad maanta aqoon iyo hanti isku darsato adduun iyo aakhiraba cid kaa sarreyn mayso yaan lagu bahalagelin diintaada yaan lagu bahalagelin la shaqaysato oo tabacato waa sharaf iyo raqnimo iyo qurux ilaahay baa ku jeclaanaya marka intaas ku soo gabagabeynayaa intaan muuqaalka ku kulmi doono nabadii wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh